شمس روحي وحي ربي جنتي وحياة قلبي فرحتي القرآن حبي نور دربي وأماني aadmigaan ilaahay abuuray qiimaha iyo qadarinta uu siiyey karaamada uu ugu daray cizada iyo sharafta badani waa ay kala duwan yihiin waayna isu baahan yihiin maxaa yeelay mid waa sabool midna sahaydayo hayaa haddii ay labadaasi iscaawiyaan mid walboo labadaasi ka mid ahna uu og yahay maanta abaalka qofka kale run ahaantii waxa ay noqonaysaa noloshaasi nolol aad u qurux badan dadku waxaa ka mid ah kuwa aan abaalkoodii aan la gudi karin مؤمن هذه سبيلي أفضل الذكر دليلي بينات محكمات حولت مجرى الزمان حافظ حول صحابي لمنا خير الكتاب واقتداء بابن عوف في السباق إلى الجنان abaalkuna ma ahan waxyaabaha dadka qaar ay ku fikirayaan ama markii la sheega qofaa loo abaalgudiyaa ama haddii loo geenayaa dadka qaar ay ku fikiraan maankoodii maskaxdoodana soo tufto dahab iyo diinaar intaasi waxaa ka qiimo badan hadalka wanaagsan waayo rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxa uu leeyahay hadalka wanaagsani waa sadaqa hadalka dhiirigelinta qof kalsooni buuxdo naftaada ku qabo iyo naf aad si kal iyo laab aad u wanaajiso maalin ayay dhibaataysaneed midna ogow nafi ma ilowdo nafta abaalka u gasho hadday garasho dheer tahay waxayna isku daydaa had iyo jeer habeeniyo dharaar kuna riyootaa in maalin abaalkaadii gudi doonto haddaba walaal sooma wanaagsana inaan hadalkaani dhayman iyo luul aan la siisan karin inaan wax ka dhuuxno waxna ka baxsano nolosheenoo idilno wada abaal iyo hadiyad jaceelay farxad dhowla caddeen walaaltinimo jaceyl islaamkun isku walaalsano nolosheena ku wada qaadano obaashii adigoo dhinac eegin jawaabtu waa haa habsaminimadaynu haddaynu nahay ummad islaam ah waxay ku hagaagsan tahay hadalka alle iyo hadalkii rasuulka hadalkii saxaabada iyo culimmadii diinta inoo soo naqliyeen waxgaradka waalidiinteenna iyo murtiyahanada dhalinta soo baxday ee iminka dhiirigelinta ummadda aanan ka daaleenin inaan anaguna qaadano oraahdooda wixii kaa anfaco maxaa yeelay qalbigu bini'aadanku waxaa toosiyo waa kalaamka alle iyo kalaamka rasuulka iyo hadalka wanaagsan oo dhiirigelinta ah shidaalka aadmiguna waa qoolkii eebbayo qoolkii rasuulka iyo oraahda wanaagsan oo dhiirigelinta ah haddaba dhiirigelintaani inta inaga qusayso aan ka qaadano oo aan horey u dhaqaaqno hortaa jira wax weyddi gadaashaa jira wax u sheeg waa dhiirigeliye garaad adwaaxid macali ibraahim oo idin leh heer sare iyo hadaf hidadiilo leh xiiso aan dhammaad lahayn waxa ay sabab u noqon karaan hadafkii hidadiiladaada oo aad maalin hanato micnaheegu waxay tahay adduunkani ku guulayso aakhirana guulaha naga raali noqdo hadafkii ujeeddadaydu waxay tahay adduunkani ha isdhigan oo guulayso aakhirana guula raali ahaanshihiisa ha inagu geeyo guryihii jannada daartiima guuraanka guushii dhabta ah ee maalinta qiyaamo oo haddaba qiimaysa wakhtigaada adigoo ka bilaabaya qorsho iyo timetable iyo hadaf adag iyo hidadiilo hami dheer leh iyo xiise aan 2 maalmood ahayn iyo dadaal wax ku ool ahay ugu dadka maanta nolosha heerka sare ka gaaray dadka daaraha quruxda badan dadka magacyadii maalka lahay waxay ahaayeen bini'aadan adiga oo kale ah waxa ay sameeyeen soo jeed dadaal qorsheen iyo hadaf adag iyo wax ay la yimaadeen ficil anaguna haddaan intaas la nimaano guulana waa inala garab galayaa adduunkaanina waxa aan ku naaloonayna guryo samo daarta aakhirana guryo aan lagu guureen wiligooda gureenin iyo guusha dhabta ah waa garaad adwaaxid macali ibraahim oo idin leh hiigso hadafkaaga adduun aakhirana hel raali ahaanshaha guulahayna iyo guryihii aakhiro oran lagu guureen wabayadan gureenin iyo guusha dhabta oo halkaasi ah waxaan idin leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu من إليه وجهوني وبحب علموني شكرهم لي فيه فخر فلهم كل امتناني مسجد الغالب بن عوف